السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحيرتها maanta ujeedada aynu u nimid ee ahayd inaynu baaq nabadeed u diro inay si loo dabin lahaa dhibaatada ka jirta laascaanood. marka koowaad anoo ku hadlayo afka xukuumadda iyo shacbiga Soomaaliland aad baan uga xunnahay dhibaatada. ilaahayna waxaanu ka baryaynaa inuu naxariisto intii ku dhimatay intii ku dhaawacantay inoo bogsiiyo. waxaan u aragnaa kaa dhibay oo kugu dhibay xukuumad ahaan iyo shacbi ahaan intooda badan gobolladoo dhan halkaasaa laga taagan yahay in arrintaa la xakameeyo oo la qabtana waa ku dadaalnay. ilaahayna waa ka barinay dadkuna u wada jeeday. waxaan is leeyahay maanta xakamayntii inteedii badnayd waa la isla qaatay. maanta hadalkeenu ma aha maxaa dhacay iyo taariikhdii muxuu dhacay. waxa weeye inaynu xal u helno xabadda socoto. xukuumad ahaan sidaa ka warqabtaan intii ugu badnayd ee dadaalka iyaga ah oo xataa aanu ogolaanay in ciidamada la laayo oo aanay jawaab celin, in ciidamada lasoo weeraro oo aanay difaaca ka bixin, inay ciidamadu ka baxaan hadba halka shicibka gadoodsan soo gaaro, in mar walba laga ilaaliyo inaanan dadkaa shicibka aada soo dhicin. waxba labaanaan harin. sababta taa loo yeela waxay ahayd caqliga mantiqiga ah bini aadamku balaaga aragto laguma celiyo. maanta laga filan maayo aniga raggeela midka ah masiibo kastoo dhacda hargeysa wixii uu ku sameeyey si aad barre inaanu cid kale ku samayno loo quuro annaga laga fili maayo, diihana looga fili maayo, dadnimo ahaana looga fili maayo. waxay gaadhay wasiiradu dharkay ku jireen markii ciidankii soo gaadhay ee difaacina dhaafay. ina sulub waa joogaa, ina kaahi waa joogaa, koore waa joogaa. inaan amarku siiyey maxaa u baxaysaa dee fadhiya dhalinyarada waa lalaya halay dilaaye ilaa waardiyaoda ina dila iyagoo taagan meesha. dulqaadkaa ku ka weyna waa sii muujinaynaa, waanu kusii dadaalaynaa. waayo dadnimadaayna faraysa, waayo aragnimadaana faraysa. waxaana qabsaday oo ciidanka qabsaday dhibaato u baahnayd inuu ninku naftiisa un huro eanu wax kalaba qaban karin si uu nabad u helo. dad cadhaysan oo la gaarsiiyey heer aan nafta hur oo xabadda isu dhig. dad cadhaysan oo le waa inaan wada dhimanaado qofkaa isla qaxina. dad aan weerar kala joojinayn kaa dulka hubbaabaa kor yaalla ciidan baa ku hor jooga hala gubato. dad laga dhaadhiciyo ogole hargeysiba way gubato waa dhiseen laascaanodoonu baabiinana waa dhisan doonaa horta aynu dagaalana uun oo dhalinyara raygaas waxaa u malaynaya inuu qalad yahay. hargeysa ciidaan u tugayn oo xoog ku muquurinaysa waa la jeclo kamid baa u timi. laakiin ninkula garanaya oo shalay dadaalka ugu badan ku bixiyey si uu reer laascaanood dhexdooda u heshiiyo oo ciidanku shalay ku dhintay oo ku dhaawacmay dagaaladii ka dhex socday laascaanood beelooda. waa ciidankii 13 sannadood ku jiray nabadeynta laascaanood. waa ciidanka cid walba u qiraysay dhaqan ahaan, aslub ahaan, isbrin ahaan, dhexjecel ahaan. xaq lagama filaayo inuu ciidankiisa dadkiisa usoo jeediyo quri. maanta ta dhacday waxa weeye markaa ciidanka raas ku kala joogsan weydo xataa diinta difaacu nafsiga ku ogo. waa dhacday marar badan oo ciidanku u jawaabeen si ay isaga joojiyaan dad aan shicib ahayna meelo badan oo kale ka yimid oo hub waaweyn kula dagaalamay. halkood mar quran weerar may qaadin. caalamkana waan u sheegayna idinkana waa laga sheegaya.
mana qaadana waana dambe difaacaasaan ku jirina inta nabadda la helayo waayo waa dadkaygii dhiiggaan u horana waan u qaadanana inana weyn alxamdulilah maanta waa la soo ogolyahay in nabadii garaadadu way qaateen joojintii in la galo oo nabadda dowlad ahaan dad badan baa igu caawintay aniga iyo dowladdaba maxaa ciidanka meesha loogu hayaa dowladdu maxay shuruudaha nabadda u qaadanaysaa miyaa isdhiibteen miyaa laydinka adkaaday waa reel aan in naga adkaadaan oo aanu heshiino meel kale tegi mana ayaa ka warsan anagoo isku baaba'da ciidanku halkiisu fadhiyayaa nabad buu ku fadhiyayaa amarkuu qaadanaya garaadadu ciidamadii amar way siiyeen intaan ogahay dhammaantood inay xabdi joojiyaan laakiin dad badan oo bulsho oo wada cadhisan oo hubku gacanta u galay oo kala jaadjaada oo waxyaalo ka socda in badan oon iyaga maqlayn baa joogta oo jiraysa shacab ahaan somaliland waxaynu leenahay kuwaa inta aynu gaarayno inta la isla afkansa garaadada iyo dadka reer haldoorka waxay ka tahay nabadda inta la isla gaarayo inaynu sharwadayaasha wada argayno ku wada jeedsano waa adkaysanaya nabadda u dulqaadanay reer somaliland ma kala adkaadaan reer somaliland ma kala adkaadaan isma xaqiraan ninna nin ma jiiro waa walaalo iskhilaafay khilaafkan way isaga imanayaan maxaa inoo dana odhanaya nin iga horreeyey baa sheegay haddaba waxaynu u baahan nahay khasaaro maanta intaa gaadha inoogu filan kolley waynu heshiin doonaa waa sida ay tahay adduunka kuwii iska laayay malaayiinta heshiiya ukraine baa maanta ugu culisa adduunka oo dagaalkaa socda heshiis baa ka dambaynaya dagaalkii labada adduunkaynu ogna wax ka dhacay vietnam iyo maraykan baynu ka ognahay waxay ka dhacay innaga dhexdeenu ognahay hargeysa burco sool inaga oo somaliland oo dowladda intiiskaa ka dhimatay khasaaraha baynu ognahay walaaloo shaydaan maalin dhexmida baa ka dambeysay inta aanu dhimashada iyo burkucin in la heshiiyaa wanaagsan reer sool waxaa leeyahay rag ka talinaya kolley waa la heshiin doona kolley walaaloo shaydaan maalin dhexdaa ka dambayn doonta kala tegi mayno taladu waxay tahay khasaaraha ha yaraado intiina gaadhay ha ahaado wixii dambe ee khasaaree dil iyo burburna aan joojino wadahadalla aan bilowno madaxamadku iyagaa noo yimid wayna canaanteen maxaa la qabtaa baa la yidhi arrintii ugu adkayda madaxdhamadu idhahdaan ku heshiin oo iga qaateen israaca 20 ugu waaweyn ee hebel iyo hebelow calan cadqaada laascaanood gaalaha laydinku laayeen markaasaa nabadda la helayahay dhalinyaradu dhibanaysaa maxaa uga baqanaysaa 20 bay ahaayeen way iga qaateen taa waanu gelayna marcad baanu qaadanaynaa waanu qaaqaynaa saasay ku timid sabarka baxayaa deetana idhaahdaan warnadaan doonaya ninkana dilayo waana ku baxayaa waana u diyaar somaliland maanta maxaa mudnaanta koowaad in isweydiinaya maanta waxaa mudnaanta koowaada in xabadda soo la joojiyo oo nabad la bilaabo oo dalka nabad lagu soo celiyo oo wixii jira la bisleeyo oo la dhameeyo ayaa nabada ninka kala keenaya ee taa shuruud ku xidhaya ama laascaanood ha joogo ama hargeysa ha joogo ee dan uu leeyahay ka hadlaayo waxay doonto haatee ma aha nin somaliland la jeclo kara ma aha nin somaliland u daleynaya shuruud lagu xidhi karaan ma jirto somaliland maanta mudnaanteedu waa nabadda iyo xabad joojinta taasay ku midaysantahay ninkii diiwaana ma aha nin nabadooday waxaan u mahadnaqayaa dad badan oo dhinacyo walba leh oo arrintaa ka nabadgalay oo soo dhaweeyey oo somaliland ka baxsan oo arrintaa aada iyo aada uga qayb xadla ka qaatay dhammaantood waan mahadnaqaya wixii fidmo ka shiday ee af soomaaliya ku hadla ee balaayo doonayna waxaan rajaynayaa inuu ilaahay soo hadeeyo oo aanay fidmada sii wadina ay soo dhaweeyaan goobta lagu shiraayo waa laga wada hadla odayaasha tegaya waxay beegsanayeen laascaanood garaadaduna waxay yidhahdeen war laascaanood dabadeeda ma xasloona waa meel buu ka dhacay bal meel kalaa la diidayo waxaan filayaa in iminka heshiis lagu yahay in la degay yagoori oo uu ka dhisan yahay cisbitaal aada u weyn oo cusub oo ay dhistaan qurbajoogga reer yagoori oo aan hore ugu sheegnay mar ay colad dhex taallay beesha halkaa dhigtay maxamuud gaa dhexdeeda oo 2 bilood loo fadhiyey oo dhowr boqol oo qof qaada inuu ku filan yahay in lagu shiro uu ku habboon yahay
dadkiina maanta halkaa yimid ee nabadda inoo taageeraya inta hadalka sheegtay aan helinba maanta arrintan kalena waa nabadda somalilandna taasaa u taalla nin walbana xil uu ka saaran yahay tabashada waxa la kala tirsanayo waxa halkaa ina geeyey waxaan saa u kala fogaanay golaha laga sheegi doona madax dhaqameedkana kalsooni waan ku qabnaa inay nabadda soo celi doonaan ay xabad joojiyaan inay somaliland isu soo celiyaan ciddii eed gashay iyo waxa laga tirsaday inay qaadato haddii xukuumadda lagu soo eedda la saaro tii ka horreysay qalaad la galo waa la isu garaaba waxayna tidadii waa hadlawaysa tirada aada iyo aad baa mahadsantihiin ilaahayna guusha waana siinayaa waana nuxalaynaa anigoo isku kalsoon nabadaasaa inoo dana sheekh iyo shariif iyo rag iyo dumar iyo aqoonyahan inoo bare mudnaanteenu waa nabadu inaynu hayno nabadaasaynu ku wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakatu